run ahaantii waan ka xumahay sababtoo wax wada tashi amase wax loo wada dhan yahay oo xaafadda madaxdeeda iyo ganacsatada loo sheegay oo qancinaya in loo baahan yahay tilaabo sidaas oo kaleeto oo khaasa ma jiraan iyadoo sidaa tahay maadaama uu yahay go'aan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka annaguna aan filanayno inuu ku dhisan yahay amase ku dabaqan yahay cilmi scientific ah waan ogolnahay wixii annagu aan qaban karnana waan qabanaynaa laakiinse run ahaantii waa nasiib darro in xaafad yar oo magaalo madaxda Nairobi ka mid ah oo markeedii horeba isa soo bixisay oo nidaamkii caafimaadka loo dejiyay u hoggaansatay ogolaaday in baaritaan xaafadda lagu sameeyo markii lixdameeye xisaabta la marayay dadka baaritaanka oo intooda badan aanay reer Islii ahayn oo dad xaafadaha kale ka yimid ay u badan yihiin in go'aan sidaas oo kaleeto adag lagu soo rogo waa laga fiican yahay waanan ka xunnahay laakiin xaafadaha kale anagu kamana darnin kamana ficilin maxaa weeyaan waxaad tiri nalooma sheegin nalama sii wargelinin laakiin arrintan maalmahanba waa la hadal hayay in bandow habeen iyo maalina lagu soo rogi doono Islii marka maadaama arrintan laga sii warqabay oo la sii ogaa raggeennii dadka matalayay maxaad uga sii gaashaaman weydeen waan la hadalnay hataa saakadan ganacsatada madaxda ganacsatada xaafadda shir dhowr saacadood soconayay wasaaradda caafimaadka la yeesheen iyo guddiga COVID-19 waxaanay ka dhaadhiciyeen oo u sheegeen tilaabooyinka cad ee ay qaadeen iyo tilaabooyinka dheeraadka ee ay diyaar u yihiin inay qaataan waxaana loo ballan qaaday in tilaaba bandu aan lagu soo rogaynin laakiinse saacado ka bacdi wasaaradda caafimaadka go'aankaasay ku dhawaaqday si meel fagaaro oo idaacadda ayaanay kaga dhawaaqday iyada oonan hoos wasaaradda aanay u soo sheegin ganacsatada iyo shicibka xaafadda ku nool arrinta ugu daran ee iminka la leeyahay waxa weeye waxaa loo cuskaday go'aankan waxa ay tahay in Islii dadka ku nool aanay u hoggaansamin awaamiirtii la soo rogay ama waxyaabihii dadka la faray sida in la kala fogaado oo kale oo dadku ay kala fogaadaan meelaha qaarkoodna waxyaabaha lagu arkayo waxaa ka mid ah in aanay dadku intooda badan sanka duubanin oo sanku aanay u xirnayn arrimaha marka maxaa kaga jawaabaysaa iyadoo la leeyahay weliba tiro badan ayaa laga helay Islii waa suuq reer Nairobi oo dhan u furan suuq dad khaasa ay leeyihiin ma jirto kumanaan qof ilaa 120,000 oo qof baa u shaqo tagta subax kasta 100,000 oo dheeraadna ganacsi bay u yimaadaan markaasi yaa maamuli kara dadkaasi waajibaadka maamulka dadkaasi shicibka Islii iyo ganacsatada Islii ma saarna ee dawladda Kenya iyo maamulkeedu saaran yahay haddii marka ay arrin noocaas oo kaleeta dhacday khaladku wuxuu saaran yahay dawladda waddanka midda kalena Islii keligeed ma aha dadku sidaasi meesha ay u socdaan meel kasta xaafad kasta oo Nairobi tagto sidaasay dadku u siqayaan meel kasta waa sidaas meelaha kalena maafiirada la saaro oo tilaabo laga qaado maxaa Islii keligeed ku takooray dawladda iyo wariyaasha adiga laakiin magaalada ka jira ma aha marka anigu waxaan markaa ka fahmayaa in xashu ay ka jirto in lagu soo degdegayo shicibka Islii inay tilaabooyinka noocaas ay ku jirto eedan faraha badan 500 oo qof baa laga helay COVID waddankoo dhan Islii waa 65 keliya ma la raadiyo meelaha ay ka yimaadeen 400 kale